soo dhawo mudane ama marwo hurbad waa maxaad isweydii kartaa waa su'aal muhiim ah oo qalbigayga maratay aan ku macneeyo dareenka maqalka ii fur hurbad waa madal waxbarasho maxaa loola jeedaa adoo jooga gayigaaga shaqada ama gurigaaga ood u baahan tahay keliya aalad iyo internet oo ah laptop ama computer aad gasho markaa kadib website-ka hurbad ama mobilkaaga aaladaada aad kula soo degto hurbad app koorsada ka diiwaan gashantaa halkaa dinka kugu soo tiraahdo kadibna adoo markaa macalinka uusan kaa daalayn kaana soo daahayn oo yahay muuqaal diyaarsan oo si fiican usoo tafatiray halkaa ku daaway adigu iskaa wax isku bar dunidu waa daalacday deegaano digitaala la dega waxbarashadiina waxay noqotay mid jeebkaaga ku jirta marka waxbarasho diyaara ee goob kasta iyo goor kasta aad ka heli karto ee cilmiga IT-ga ku saabsan iyo luqadaha afka qalaad sida carabiga iyo ingiliishka ayaad ka helaysaa madasha hurbad.com hurbad waa hoyga hagarliida hurbad waa hoyga tababarka injineerada mustaqbalka hurbad wuxuu soo jiray muddo 6 sano ah runtii arday badan baa ka faa'iideysatay ilaa haddana nagu xirneed tayadeennana mar walba sii kordhinaa ku soo dhawow libaax ama libaaxad madasha hurbad iyo qaabkay u dhisan tahay qaabkay u shaqayso iyo qaabka la iskaga diiwaan geliyo qaabka koorso looga iibsado iyo qaabka la iskaga diiwaan geliyo diblomooyinkeeda iyo koorsooyinka iyo adeegyada ay bixiso ayaa halkaa kugu faahfaahinaya hurbad waa madal waxbarasho ee af Soomaali ku baxaysa fiiri leen haddaad tagto waxaad tagaysaa dibloma waxaad heli kartaa diblomooyin aan bixino oo ilaa iyo dhowr iyo 10 dibloma ah haddaa hoos u socoto waxaad arkaysaa waxaan bixinaa dibloma kombiyuutarka qofka bilowga loogu talagalay ee Microsoft Word Excel PowerPoint Windows 10 Windows 11 lagu barayo oo muddo 4 bilood laga soo dhisayo aasaaska ama computer application waxa loo yaqaano waxa ku xigta waa English Diploma Foundation ayaan bixinaa oo ah qofka looga hadashiinayo muddo 6 bilood gudahooda Englishka hadduu barto labada level ee koowaad ee DK English for everyone waxaanayna web design ee xirfadla laga dhigayo muddo kooban ayadoo lagu barayo sida website-da loo naqshaday caalamiga muddo kooban lagu barayo oo web designer buuxa laga dhigayo waxaanayna xirfadda graphic design-ka oo muddo kooban oo 6 bilood laga dhigayo graphic designer buuxa iyo waxaan haynaa xirfadda digital marketerka ee lagaaga dhigayo digital marketing qof yaqaana muddo kooban oo 6 bilooda iyo waxaan ku haynaa xirfadaha looga shaqeeyo shirkadaha waaweyn ee hard skillska waxa loo yaqaano ah IT supportiga sys adminka IT help deskiga ayaa lagu bartaa xirfaddan system administrationka 6 bilood gudahood ayaa haddii aad xirfadaas aad barato waxa la yiri fursaday waxay soo martaa qof diyaarahe shaqo IT haday soo baxda aad shaqadaas dalban kartaa oo arji inta qorato laga aqbali doona ilaahay hadduu idmo waxaanayna network administration diploma ah ee 6 bilood soconaysa ayaduna ee laga dhigayo network professional qof ah waxaanayna 3 diploma oo cyber security ku saabsan ee qofka bilowga mid loogu talagalay ee aan u baahnay inuu sys admin iyo networking soo maro wuxuu toos u aadi karaa cyber security foundation kan hadduu markaa soo dhameeyo cyber security foundation wuxuu aadi karaa cyber security analyst haddii uu markaa cyber security analyst soo dhameeyo haddana wuxuu aadi karaa cyber security professional marka saddexdaas diblomo ayaan idiin haynaa oo cyber security aan u kala saarnay awal waxaan ku xiri jirnay shuruud ah inuu qofku sys admin iyo networking soo maro inta uga baahnaayo muhiimka ahayd ayaa halkan kugu soo diyaarinay qaybtan cyber security foundationka 6 biloodana ku dhamay kartaa marka soo dhawow waxaan haynaa waa 10 kaas diblomo halkii diblomaba qiimaheedu waa ku qoran yahay haddaa ku dhufato mid walba qiimaheedu waa iska simple waa 299 ama waxa loo yaqaan $300 3 bilood ku bixi boqol u bixi ama 99 bishiiba ama 6 bilood ku bixi iska yareeyo 49 tiiba bixi taa doonta tag durationka ama xilliga ay soconayso dibloma walba waa 6 bilood haddaa tanad wooga tagto waa $300 299 haddana aan tagno sys adminka ayadana waxa laga dhigay waa $300 haddaa hoos u socoto waxaad arkaysaa waxa laga dhigay waa 299 waxaad ku bixi kartaa waa 3 bilood haddaa rabto 6 bilood hoos u soco koorsooyinka aad ku baranayso dhan halkaan ay ku tixan yihiin koorso walba iyo magaceeda iyo inta laga rabo inaad ku dhamayso gadaal u laabo kor haddaa u socoto waxaad arkaysaa koorsooyinka digital marketingka ayakana diblomada aan ka hayno ayaduna waa $300 waxaa ku bixi kartaa 3 bilood ama waxaa ku bixi kartaa hal mar ama waxaa ku bixi kartaa 6 bilood oo iska yareerayso graphic designka ayadana waa sidoo kale diblomaday doonta ha noqoto diblomo walba waxa ay joogtaa waa $300 waa 3 bilood ku bixi ama 6 bilood ku bixi haddaan ku laabano qaybta diblomada haddana oo aan tagno diblomadan web designka ee aan ku tuso qaabka la iskaga diiwaan geliyo diblomaday doonta ha noqotee marka balaanka aad rabto inaad ku bixiso diblomada lacagteeda dooro adigu hal mar baa wada bixinaysaa oo one time payment 3 bilood ma iskaga yareeynaysaa oo bil walba 99 bixinaysaa ma waxa iskaga yareeynaysaa 6 bilood oo bil walba 49 aad bixinaysaa marka waxaan dooranayaa waa mid ka dhexe ee 3 bilood aan rabaa inaan ku bixiyo inaan dhaho okay haddaan ku dhufto halka haddaan rabto waa dooran kartaa midka 6 bilooda kadib waxaa la yiri diploma plan aad dooratay oo $100 inaad bixinayso bil walba ama $99 waxaa la yiri halkan geli diplomada web designka ayaa soo dalbatee fiiri marka magacayga halkan gelinaya waxaan leeyahay waa Maxamed Isaaq magacaygu okay waxaan leeyahay xirsi weeye last name-kaygu Soomaaliyan joogaa waxaan deganahay wadada soddonka oo kale waa iska tusaale hoos hadaa u socdo waxaan leeyahay gobolka Banaadir aan joogaa waxaan leeyahay 252 oo Soomaaliya address-keedu yahay haddii aad joogto wadamada dib dhacay oo loo yaqaan qurbaha fadlan address-kaaga saxda buuxi halkan waxaan gelinayaa halkan teleefankayga WhatsApp kale oo anigu aan haysto si la igula soo xiriiro halkan waxaan gelinayaa waa email aan hubo inuu yahay mid shaqaynaya oo anigu aan ka geli karo mobilkayga ama aan ka geli karo
computerkayga si aan hadhowtii passwordkayga iyo account-kayga aan ugu galo username baa la yidhi samaysa halkan waxaan samaysanayaa username aad iyo aad u fudud marka usernameka fudud waxaan ka dhigan karaa hurbad 89 oo kale waa iska fudud yahay runtii kadib waxaan samaysanayaa password adag oo passwordka adag waxa uu ka kooban yahay haddii aan ku tuso hal mar passwordka adag waxaa loo baahan yahay sidaas inuu u eg yahay fadlan iska hubi anigu hadda password noocaas ma ka dhiganayo aniga hadda password adag baan dooranayaa fadlan passwordka ka koobnaada xaraf weyn xaraf yar xarfo gaara iyo xarfaha loo yaqaano special characteriska ha ka koobnaado markaan passwordkii adkaystay username kooban aan doortay emailkayga saxda aan geliyey oo foomkayga buuxiyey halkaan baa imaanaya qaybta paymentiga haddaan rabo inaan paymentiga ku bixiyo wafi bay waa adeeg ii ogol anoo adeegsanaya mobilkayga inaan saad iyo sahal iyo EVC aan ku bixiyo si automatiga lambarkaaga EVC-ga ku jirta lacagta ama saadka ama sahalka ayaa halkaan si buuxa u gelinaysa adoo eber ka bilaabaya kadib waxaa ku soo wacaysa shirkadda iska leh adeegga aad isticmaasho ayadaa ku odhanaysa hurbad institute of technology miyaad lacagtaas siinaysaa ha had leedahay binkaa gelee lacagtu waa kaa soo baxee automatiga kugu furmaya dibloomadu ama koorsada markaa aad iska diiwaan gelinaysa hadda dalba ku dhufo hadda marka waxaan samaynaya anigu hadda ma raba inaan ku bixiyo wafi bay waxaan rabaa inaan ku bixiyo manual payment oo ah inaan ku bixinayo kale e-dahab oo kale iska dhigayaa waxaan ku bixinayaa oo kale tusaale e-dahab ama waxaan ku bixinayaa bank transfer ama premier wallet ama xawaalad oo kale ayaan iska dhigay optionka labaadaan doorto optionka saddexaad haddaan rabo inaan doorto kaar credit cara oo sida hadda kaarkaan ahaayoo kale ah ayaan halkaan gelinaya 16kiisa number dhag anoo markaa gelinaya 16kiisa number ayaan halkaan gelinayaa waa iska tusaale balse kaar inaad haysataa u baahan tahay si aad u isticmaasho ama master ha noqdo ama visa ha noqdo okay bankiga oo doonano ha noqdo hadda banki waxaan hayaa IBS bank mid la yidhaahdo oo bangiyada Soomaaliya aad iyo aad caanka uga ka shaqeeya kamid oo kaararkooduna u fiican yihiin sida fiican oo aad iyo aad loo isticmaalo marka manual payment hadda doortay hoosaan aadayaa waxaan leeyahay hadda dalbo markaa iraado waa dalbo daawo durbadiiba waxaa lagu leeyahay markaasaa u dalbato whatsappka nagala soo xiriir qaabka lacagta u bixisa noo sheeg oo dhan markaaga waa kan my courses bay kuu soo galayaan koorsooyinka dibloomada ayakoo dhammaystiran ama koorso iibso ama dibloomo iibso sidaasa uun foomka loo buuxiyaa waa isku wada mide haddii hadda aan tago home inta tago aa hurbad booqdo waxaan samayn karaa isla sidii hadda inaan koorso u iibsado diblooma hadda iska diiwaan geliyo soomahan waa fududaha fiiri koorsooyinkan tusaale kale waxaan u baahday digital marketing koorso ku jirto kale anoo ka diiwaan gashan diblooma aan rabaa inaan goonideyda u barto tusaale kale affiliate marketing aan u baahday waa ku dhufanayaa $49 joogtaa waxaan leeyahay hadda baro anoo account-kayga ku jira aaday u fududahay hoos baa u soconayaa waxaan leeyahay waxaan ku bixinayaa manual payment ayadana form inaan buuxiyo la igama rabo maxaa yeele waxaan ahay return customer ama qof soo laabtay baan ahay waxaan leeyahay hadda dalbo inta idhaahdo I have read and agree fiiri waa uu soo dhacay dalabkayga waa la aqbalay koorsadana waxay ii soo gelaysaa halkan my courses marka sidaas ayaa hurbad account looga samaystaa koorso dibloomana la iskaga diiwaan geliyaa haddii aad wax faahfaahin u baahan tahay ama su'aal aad ka qabto ku saabsan dibloomooyinka ama xog dheeraada lambarada hoos cararaya oo whatsappka leh oo kala duwan runtii ayaad nagala soo xiriiri kartaa kulligoodba aniga ayaa wata shakhsiyan aad igala soo xiriiri kartaa anaga ku jawaabaya magacaygu waa maxamed isxaaq maamulka hurbad baan kamid ahay wixii su'aalahood qabto whatsappka igala soo xiriir si aan markaa kuugu faahfaahino soo dhawaaw gacmo furan dibloomooyinka hurbad ka faa'iideyso koorsooyinka hurbadna ka faa'iideyso sidaana iskaga diiwaan geli madasha hurbad.com gacmo furan bay kugu soo dhaweynaysaa mudane ama marwo mahadsanid